Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka ka oo xiiso gaar ahaaneed galabta. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta ku warantay inuu Mareykanka fadeexad kala kulmay go'aamadii uu soo saaray ee lagu xanibiyay isku socodka marin-biyoodka Hormuz, iyadoo amarka xanibaadda uusan saameyn ku yeelan socodka maraakiibta sabab la xiriirta maraakiibta shidaalka ee Shiinaha iyo kuwa kale ee Mareykanku saaray cunaqabataynta ayaa si caadi ah marinkan u gudbaya. Maanta waxaan u joognaa 2026 amarkii Mareykanka oo noqday shimbiriyo heesa kaas oo la mid noqday wadanka adduunka ugu tabarta yar war saxaafadeed uu soo saaray. waxaa soo baxaya arrimo la yaab leh. Mareykanka waxaa nolol iyo geeri lagu leeyahay 10 saynisyan oo ka shaqeynaya horumarinta nuclear-ka ee Mareykanka, iyadoo arrintan ay buuq ka dhalisay gudaha Mareykanka sida uu baahiyay wargeyska The Economic. Afhayeenka aqalka cad ee Carlo Levitt oo warbaahinta weydiisay xogta la xiriirta saynisyahanadan waxa ay ku gaabsatay in hay'adaha shaqada ku leh la xiriiri doono. Mid ka tirsan ama mid ka mid ah Congress-ka Mareykanka ayaa ku baaqay in Congress-ku arrintan soo farageliyo, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in la ogaado saynisyahanada in la dili ama la afduubay iyo waxa ku qarsoon xaaladooda ama ku hoos jira. Arrimaha la yaab kale ee caalamka marba mid ayaan idin soo qaban doonaa. Mareykanka ayaa haatan waxa la leeyahay waxa uu codsanayaa in wadahadal kale uu la galo dhinaca iyo Iiraaniyiintuna weli way iska aamusan yihiin oo kaliya waxa ay sugayaan waxa ka soo yeera Mareykanka iyo xulafadiisa. Xoogayihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ka hadlay xaaladda dagaalka Iran lagula jiro waxa uu yiri xalka arrintan waxa lagu gaari karaa oo kaliya wadahadal, inagu isma dhiibayna iyaguna sidoo kale isma dhiibayaan, kaliya waa inaan isugu nimaadnaa miiska wadaxaajoodka si loo gaaro heshiis nabdoon oo mid kasta uu ku gaari karo danahiisa gaarka ah. Wadankii Iran ahayna wax walba waxa uu kaga baaraandegayaa waxa ku soo socda. Iran ayaa nidaamkeeda waxbarashada u rogtay dhammaan in lagu qaato ama lagu qaadan karo habka fogaan aragga ama loo yaqaan online-ka halkii ardadu ama ay ka imaan lahaayeen iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo 21 bishan April, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iran ee Tasnim News Agency. Wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee Politico ayaa maanta ku warramay in xisbiga Jamhuuriga ee uu Trump ka tirsan yahay ay hadda si dhab ah ugu walaacsan yihiin habdhaqanka iyo hadallada Trump inay dhalinayaan guul darro xisbiga ka soo gaarto doorashada dhexe ee Mareykanka ee la qabanayo 3 bisha November, taas oo lagu doorto xildhibaanada labada gole ee Mareykanka oo ay hadda aqlabiyadda haystaan Jamhuuriga. Mid ka mid ah xeelerayaasha xisbiga ayaa wargeyska u sheegay wax walba way adkaanayaan marka doorashada la gaaro, ayuu leeyahay. Mana jirto qof xisbiga ka tirsan oo walaac aan qabin sababtoo ah hadallada aan micnaha lahayn ee ka soo baxaya aqalka cad.